Assalaamu calaykum guys, aad baa idin salaamaya. Maanta waxaan sameynaynaa application-keeni u horeynay inagoo isticmaalana Create React app-kii. Okay, saa darteed waxaan sameynayaa, waxaan soo kicisanayaa Hyper-kayga terminalka. Haddaad command-iga isticmaalaysan aday ku jirtaa, laakiinse waxa ka fudud oo kan ka cleansay koodkiisa. Laakiinse markaad adigu isticmaalayso aday ku jirtaa waa optional. Markaas Hyper-keena markaan soo kiciyo kadib desktop-kayga ayaan tagayaa. Imika root ku joogaa, laakiin desktop-kan tagay kadib desktop-kayga waxaan odhanayaa folder baan ku samaysanayaa, make directory baan leeyahay. Directory-ga waxaan u bixinayaa tutorials badhe oo ma tutorial videos badhe. Okay, videos. Okay, inta markaan siiyo enter baan leeyahay. Imika desktop-kan joogaa. Desktop-ka markaad imika haddaad shaashadaada tagto folderkaas wuu abuurmay. Haddaan ls yidhaahdo you see that desktop-kayga tutorial videos-ka waa kuwan uu abuurmay. Okay, marka waxaad odhanaysaa clear baan iska odhanayaa. Clear markaan idhaahdo cd baan leeyahay, tutorial videos-kan aan tagay ayaan tagayaa. Okay, imika directory-ga halkan joogaa baleg waa root-kayga desktop-ka tutorial videos. Okay, kadib waxaan ku sameynayaa folder cusub. Folder cusub baan sameynayaa. Folderkaasi waa inaad isticmaashaa Create React app-kii. Isaga markaad doonayso documentation waa muhiim guys. react.js.org gan baad imanaysaa. Kadib waxaad odhanaysaa create new app markaad doonayso inaad application cusub sameyso adigoo React isticmaalaya. Isaga ku siinaya uu ku hagaya maaragta guys, create new React app. MPX baad odhanaysaa waa node package-kiisa uu soo dhowlaan gareynaya package-yadii DOM manipulation-kii waxii oo dhan. kadib create react app baad ku daraysaa. Intani waa folder name-kaagii. Folderka file-kaaga project-kaaga magaciisa aad u bixinaysaa. Ikhtiyaarkaada iskale kaas oo optional, ikhtiyaarkaada iskale waxa doontaad u bixinaysaa. Okay, imika bale waxaan odhanayaa mbx create react app baan leeyahay. Iska fiiri qoraalka guys, xaraf hadduu qaldo uu kaa diidaya. Bale imika react baan qoray. Okay, app baan idhi Create React app markaad tidhaahdo waxaad doonto u bixinaysaa. Imika my app haddaan idhaahdo ikhtiyaarka inagaa iskale waa my app baan u bixinayaa, waa my application. Kadib enter baan leeyahay. Enter markaad tidhaahdo dhowlaaninkii buu hadda bilaabayaa. Dhowlaaninkii ayuu hadda bilaabayaa. Haddaad Hyper isticmaalaysa iyo haddaad Visual Studio aan kuu sheegay aad soo dejisatay aad isticmaalayso aday ku jirtaa. Sababtoo ah Visual Studio code-ku terminal buu leeyahay. terminalkaas Visual Studio Code-ka terminalkiisa isticmaalaysaa waa la halkeeyun optional weeye guys. Visual Studio Code-ka intaad direct intaad soo open garayso aad folderkaaga ku open garayso kadibna intaad terminalka daaqad terminal furato mbx create react app application-ka folderkaaga file-kaaga magaciisa aad tidhaahdo uu kuu dhowlaan garaynaya uu kuu sameynaya. Imika dhowlaaninkii buu bilaabay. Hadda minute inuu qaata laga yaabaa oo application wuxuu dhowlaan gareynayaa package-yadii oo dhan, node modules-kii, react DOM-kii, script-gii wixii oo dhan ciidda ka badan yihiin. adigu arki doonaa faylo ciidda ka badan buu dhowlaan gareynayaa. kadib waxa fiican documentation-ka inaad indhaha mariso guys. Documentation-ka haddaad doonayso inaad programmer noqoto, documentation-ku way ku caawinayaan ilaa xad aad baan ku yidhi. Sababtoo ah markaad doonayso imika create react app aad tidhaahdo project-kaaga u horeeyay markaad doonayso inaad abuurto ood halkan timaado ood file name-kaaga cd tidhaahdo my app-kii folderkaaga file-kaadna magaciisa aad samaysatay inaad cd aad tidhaahdo igee. kadib concept-gan iyo baad arkaysaa hello world oo kale markaad printin garaynayso you see that react dom.render document get element by id. waxaan oo dhan waxay waan ka hadli doonaa. line-kani wuxuu yihiin ka hadli doonaa, kuwani waxay yihiin baan ka hadli doonaa. Okay, kadib intaas baan adigu fiiri indhaha mari akhri waxay yihiin waad arki doontaa. Components-ku waxay yihiin, props-ku waxay yihiin already waan ka hadli doonaa. Each one by one baynu ka hadlanaa, laakiin se inaad documentation-ka mar walba akhridaa waa muhiim. aad bay compulsory u tahay guys, laazim waay. marka imika intaa ka bacdi baan fiirinaa. hadda markuu inoo dhamaado kadib baynu Visual Studio Code-ka isla taganaa. kadib baynu start garaynanaa diploma serverkeena. kadib intaas ka bacdi guys indhaha inaad marisa waa muhiim. Okay, aad buu muhiim u yahay, uu ka caawinaya. Okay guys, waan isku soo noqonnaa. hadda waan fiirinaa inuu inoo dhamaaday. hadda aan fiirino
hadda wuu dhammaystiray mar haddaad aragto waxaasoo foldera mbx create appka aan nidhi waxaasoo faylasha haddaad happy hacking aragto happy hacking kadibna uu ku leeyahay cd my app dhe faylkaaga magaciisa tag projectgaaga magaciisa applicationka magacaaga u bixisay kadibna node package-ka npm start hadduu ku yidhaahdo intaas waan ku dhahay successfully buu kuugu dhammaystiray marka happy hacking haddaad aragto waa caadi successfully buu kuugu soo dhacay kadib waxaan tagayaa cd my app buu ku leeyahay ya faylkaaga magaciisa ayaa tagaysaa adigu my app waxaa ku dhahay faylkaaga magaciisa tagaysaa kaad u bixisay inter baan leeyahay inter markaan idhaahdo imika directoryga waxaan joognaa halkan my appkii baan joogaa okay my appka ls haddaan idhaahdo list waxaa ku dhex jira haddaan arko node modules packet the json package lock the json public waxaan oo dhan waxaan iyagu ka hadli doonaa kadib intaa markaan code waxaan odhanaya waxaan ku furayaa visual studio codeka markaan doonayo inaan furo code dat baan isticmaalayaa haddaad atom isticmaalayso editoradu ciidda ka badan yihiin guys visual studio codeka aad unbuu u fiican yahay sababtoo dhan terminal buu leeyahay aad ku rangaraynayso baakajyadaada ku dhowlaan garaynayso terminal buu leeyahay okay oo inaanad u baahan baa laga yaabaa hyper wax kasta oo aad inaanad u baahan baa laga yaabaa laakiin atom markaa isticmaalayso muxuu ahaa bracket ama mid kale haddaad isticmaalayso waa inaad u baahanaysaa sababtoo dhan meel aad ku rangarayso development serverkaaga code dat baan odhanayaa haddaad atom isticmaalayso atom dat baad odhanaysaa macni code datkani waxa weeyaan faylasha soo raacay macni code dat waan ku furay macal faylashiisii uu ii hayay my appku laakiinse waa inaad directorygaaga mar walba joogtaa faylka uu projectgaaga magaciisa waa inaad joogtaa marka automatically isagaas startaya powerful way guys markaad commandiga aad instructionka isticmaalayso aad commandka isticmaalayso commandku aad buu powerful yahay guys sidaa darteed imika wuu furay visual studio codekeena buu furay marka visual studio codekii baan joogaa visual studio codekii ayaan joogaa visual studio codekii get started buu ku yidhi waa iska xidhaya waxaasoo faylisa buu dhowlaan gareeyay waxaanoo public node modules waxaas waxay ka yihiin baan ka hadlanaa node moduleskan src-gan git ignorekii package log jasonkii package jasonkii waxaanoo dhan waxay yihiin gadaal bayn ka hadlanaa laakiin imaka inta muhiimkaa bayn ka hadlanaa appdjskeenii waxaan ka hadlanaa appkeena isticmaalano kow waxaan odhanayaa imaka terminal baan furanayaa okay terminal markaa doonaya inaad furto terminal baan ayar tagayaa new terminal baan leeyahay okay terminal baad ku dhufanaysaa new terminal halkan uu kuu furaya daaqadan okay waa halkan ku leeyahay mbx create reactor baad u isticmaali karaysaa folderkaaga shaashadda markaad ku abuurato ood ku furto atomka waad ku isticmaali karaysaa kadib waxaan bilaabayaa diploma serverkeeni npm start baan leeyahay inter baan siinayaa npm start markaad inter aad siiso isagaa isbilaabaya okay wuxuu bilaabayaa diploma serverkeeni okay kadib waxaan ka hadlanaa guys faylashani sourceka ku jira waa meesha uu ka dhacayo functionalitygaaga wax kasta ood samaynayso okay wax kasta ood samaynaysa waa meesha ka dhacayaan appdjskani wuxuu hayaa waa mar walba by default buu ku siinayaa intan headerkan iyo waxaan iyagu markaad soo dhowlaan garaysto project kastood react soo dhowlaan garaysto ku siinayaa intaa okay guys markaad kadib wuxuu ku odhanayaa ayar halkan wuxuu hayaa appdate testiga waxaan waa iska delete garanaynaa sababtoo ah loogadoodii weeye imika markuu start gareeyo baad arkaysaa automatically imika isagaa isfuraya okay guys imika haddaan idhaahdo adoo jooga halkan automatically isagaa isfuraya wuxuu isfurayaa local hostigeenii buu furayaa okay local hostigeenii uu ku rangaroobayay browserkaad isticmaalayso aday ku jirtaa anigu waxaan isticmaalaa chrome buu ku furay automatically isagaa isticmaala local host 3000 buu ku yidhi maaragtaa sababtoo dhan halkan start diploma serverkii buu yidhi okay diploma serverkii macnihi waa halkan waa domainkii oo kale local host laakiin imika weeye wax customized oo domain isticmaali mayno waa locally baynu develop garaynaynaa mustaqbalka markaad
projectgaaga dhamaystirka unba custom loo iibsadaa wax muxuu ahaa domain name kadib isagaa isbilaabaya waxaan ka hadlanaa folderadan waxay yihiin waxa muhiima kuwani ma aha waa iska delete gareynaa sababtoo ah already isagaana u abuur haddaad doonto src oo dhan waad delete gareyn karaysaa laakiin se ka muhiimkii waa index.js inaad haystaa waa muhiim sababtoo ah meesha ay ka dhacayso wax kasta ood rangaraynaysaa halkan ay soo gelayaan aabkan waxa kastood ku baaskaraysaa aabkan imika logo haystaa logo ayuu haystaa markuu imika start garoobo baan arki doonaa imika wuu wareegayaa logo haystaa logadaasi waxa lagu baaskareeyay index.js ayaa faylkii lagu import gareeyay halkan waa la soo import gareeyay faylkii hierarchicalka waa la eega wuxuu soo import gareeyay faylkii kadibna wuxuu rangaraynayaa laakiinse index.js halkuu ku baaskaraynayaa wax kasta oo contactiga halkaa ku baaskarayso root-kan ku baaskaraynayaa root-kan xageed ka timi root-kan waxa weeye publican index.html-kan ayuu ku baaskaraynayaa isagu sababtoo ah waxaan waa iska description guys waxaan oo dhan waa iska description waa iska delete garan karaysaa laakiinse waxba lama delete gareeyo sidiisa loo daayaa rootku waa dhifkan html weeye waxaan isticmaalnaa single page application haddaad maqasho spa haddaad maqasho waxaa loo jeedaa waa kaa macnii dhifkan ayuu ku baasgaraynayaa okay hadda imika successfully buu yidhi wuu start garoobay successfully buu yidhi hadda waxaan guys waxaan uga baagani wuxuunbuu ku tusayaa inta folder ee change-ka aad samaysay package-yadii waxaad soo dhowlaan garaysay laakiin se haddaad compiler successfully aad aragto waa already wuu start gareeyay ku leeyahay macnii loogadan uu haystaa project kastood samaysaa oo react loogadaasu ku siinaya macnii waa faylashan publica src-ga waxaa ku jira index.js wuxuu haystaa aabkanow maxaad haysataa aabkani wuxuu haystaa intan okay aabkani wuxuu haystaa intan macnii waa imagekan oo sourcekan oo looga u haystaa loogadiina waa loogada halkan ay ka timi faylkan weeye waa svg imagekan kadib waad aragtaa waa react app wuu rangareeyay kadib loogadan u haystaa waa sawirkaas iyo app.js reload data macnii qoraalkan weeye okay wax kale maaha guys meel ay ka yimaadeen moodin intaasun weeye intan haddaan iska delete gareey maaragtaa headerka gebigiisa baan ilaa headerka waxaa ku jira aan clear yidhaahdo okay clear baan idhi kadib markaan already intaa clear yidhaahdo error buu isiinayaa sababtoo ah errorka loogadani ma haysto meel ay ku baaskarayso loogadan meel uu ugu yeedho functionka loogadani uu meeshan ugu yeedho ma haysto control save baan odhanayaa control iyo s baan isla qabanaya markaad save garaynaysa guys waxaan ku leeyahay waa inaad local hostiga isticmaashaa macnii control save baan odhanayaa macnii logo is not defined buu ku leeyahay halkan logo halkan uu kaa siinaya terminalka errorka logo is not defined buu ku leeyahay app.js-ka line-ka line 1ka waa ka lambarka koobaad importkan line-kan ma haysta buu ku leeyahay marka isagana iga delete garee baan leeyahay mar walba waa la iska delete garee save baan odhanayaa okay control save baan idhi compiled successfully shaasho daaqadani local hostigeenu waa caddaan wax allaale waxay haysataayo qoraala website-keenu imika male haddaan imika h1 aan idhaahdo welcome to React course okay course dhammaystiran haddaan idhaahdo hashtag Somali oo Soomaali ah control s markaan idhaahdo save idhaahdo automatically you see that welcome to React course dhammaystiran hashtag Somali okay sababtoo ah app-kani wuxuu qoraalkan ku baasgareeyay index.js-kan intan uu haystaa okay app-kan uu haystaa mar walbana guys mar kasta ood qoraal qorayso oo react isticmaalayso waa inaad dhif u dhaxays waa inuu dhif kaliya ahaadaa imika dhif kale oo laba dhif oo isbarbar yaal ma samaynayo mar kasta waa inuu dhif wax kastoo return garaynaysaa kan waa function waa javascript sababtoo ah react wuxuu ku
rangarooba javascript waxaan isticmaalanaa waa javascript guys laakiinse javascript dhexdiisii ayaad html ku qori karaysaa oo css ku qori karaysaa sababtoo dhabalag app.css kani css buu haystaa control a baan idhi iga delete kare baan odhanayaa app.css kani maaragta iga delete kare baan leeyahay save baan idhi imika bilaa qoraalka ay koornuhu tagay sababtoo dhe app.css kani la import gareeya halkani css buu haystay saa darteed buu bartanka markii hore u taagnaa index.css kanina font size buu haystaa font family adigu fontka qurux badan waxba delete karin oo iska daynaa laakiin markaad mustaqbalka project-yada aad samaysanayso waa dad doontood iska saari kartaa ikhtiyaarkada iskale kana waa la iska delete gareeya app.taskiga loogada setupka waxaasoo dhan airbad intaad control isla saabtood marbaad wada delete garaynaysaa okay delete baan siinayaa guys waxaan kaa ilaabay extensionka waa inaad haysataa extensionada markaad doonayso inaad la socoto kooraskayga anu waxaan isticmaalaa extensionska kow ka muhiimkaa baan kuu sheegayaa EJS React Redux Graphical kan React snippet baa la yidhaahdaa okay laakiinse qoraalku waa intan waxaad eegaysaa numberka dadka dhowlaan garaystay halkanaad ka search garaynaysaa ES7 extensionska halkanaad ka search garaynaysaa guys okay waa ka u horeeya macnaheedu waxaad eegaysaa number of dhowlaaniska dadka dhowlaan gareeyay intay yihiin waa milyan aniga waa install buu ku leeyahay aniga waa install uu igu jiraa uninstall hadana uu ka baxayaa install baad leedahay kadib inta markaad tiraahdo waxa kale soo dhaqaadanaysaa auto tagna waa isticmaalaa sababtoo ah markaan doonayo inaan diff aan tag furto automatically buu isku xidhaya tagaygu okay waa inaad isticmaashaa taggan aad soo dhowlaan garaysataa okay waad search garaynaysaa auto tagun baad leedahay okay ani taggaaga markaad qorayso baad u jeedaa imika haddaan fayliskayga ku noqdo oon app.js ku noqdo kadib aan halkan aan paragraph aan idhaahdo aan close idhaahdo automatically buu isu xidhay maaragta auto tag wey haddii kale waa inaad direct aad adigu xidhaa aad intaad qorto ood haddana sidan aad gebigiisaba adigu marmar qortaa laakiin markaad tagga u horeeya aad xidho automatically saa ku dhamaystiraya hi there baan leeyahay okay marka intaan aan save idhaahdo aan shaashadayda ku noqdo sida hadda balag hi there waa kan halkan uu soo gashay ani waa paragraph waa html guys waxaan qoranaa halkan uu ku baas gareeyay okay imika haddaan kan idhaahdo aan header 3 idhaahdo welcome to React course haddaan idhaahdo safe idhaahdo wuu kala sarreynayaa okay back applicationkaygu wuxuu ka hooseeyaa header 3gaygan macnihii appkani wuxuu ka hooseeyaa h3gan guys waxaan react.strict modekani waa adigu macnihaas dhif oo kale u haystaa okay ka warwaran waxaas waxay gadaal bay ka hadlanaa maaragtaa kadib imika h3gan wuxuu ka sarreeyaa aapkani sababtoo dha aapkan waa function waa file kale oo lasoo import gareeyey kadib indexka lagu soo import gareeyey oo wuxuu haystaa h3gii wuxuu ka sarreeyaa aapkan saa darteed ba imika aad qoraalkeenan u arkaysaa inay kala sarreeyaan welcome to React course iyo welcome to React course dhammaystiran okay markaad intaa eegto kadib waxaa ku tusayaa guys app.css kani haddaad imika intan qaado aad indexkaaga tagto ood kan iska saarto kanna iska saarto may command baa saaray commentiga waxaad oranaysaa control iyo forward baad oranaysaa aan save yidhi refresh bisa siinayaa wax jira ma jiro sababtoo dheh gebiga qoraalkiiba waan refresh gareeyay laakiin haddaan imika refresh ka qaado okay aan refresh ka qaado aan commentiga ka qaado baan u jeedaa commentiga haddaan ka qaado oon app-kayga idhaahdo okay guys imika black safe baan idhi wuu is refresh garaynayaa hadda wuu soo dhigayaa qoraalkeennii okay document get element by id-gani waa selectorkii javascript waa xasuusataa markaad index.html-kaaga ka soo qaadanayso markaad index.html-kaaga folder markaad doonayso folder inaad dhow manipulationkaaga
aad manipulate karayso ama contact ku baas karayso kadibna waxaa la oran jiray document get element by id get query selector sidaa darteed baa imika id gan usoo qaadanaya sidaa darteed buu leeyahay get element by id macnaheedu root kan ku baas karaya wax kasta oo contactiga oo halkana macnaheedu contactiga waa update css kan app kani wax kasta halkana ayuu ka dhacaa insha Allah mustaqbalka markaan projectyada waaweyn sameynana baad arki doontaa wax kasta halkana ku baas karaynaa kan ma bedelano app kan ma bedelano wax kasta halkana ku implement karaynaa files kala sameynay file ciida ka badan ay sameynay halkana ku soo baas karaynaa okay guys waad fahantay ku ciyaar waxa doonto ku qor wax allaala waxa doonto ku qor header kala ku qoraya iska ilaali guys qaladka mar walba uu ku siinayo errorka sida looga saaro fiidiyoda dambe ka hadlana kadibna waan ka hadli doonaa errorka sida looga saaro iyo marka errorka halku ka tusay okay ku ciyaar sida doonto ku ciyaar adaa iska leh waxa doonto ku qor okay waa html guys halkan uu soo dhigaya fiiri qoraaladu si ay kala sareeyaan okay imika kana copy kanaan dhowr jeer pass baan idhi okay kanaan 4 jeer ku baas gareeyay save baan idhi imika intaa markaan idhaa black welcome to React course dhammaystiran qoraalkaygii baan 9 jeer koobiyey okay guys imika qoraalkayga haddaan halkan oo kale waxaan doono ku qoro oo waxaan doono sidaa u qoraado aan save idhaahdo wuu isqurxinaya maaragta qoraalkaygu wuu isqurxinaya macnaheedu line-kii wuu sameeyaa saa darteed waa extension-ka waa inaad beautify-ga haysataa extension-ka prettier-kan iyo ama beautify-ga waa inaad isticmaashaa okay labadaa mid baad install odhanaysaa kadib qoraalkaagii isagaa isqurxinaya okay extensionada waad search garan karaysaa YouTube-ka Visual Studio Code extensionist baad odhan karaysaa okay ikhtiyaarkaadaas kale waad search garan karaysaa wax error ma haysto hadda mar walba compiler halkan adeegaysaa qarar errorka halkan uu ka soo tusay waa ku tusi doonaa insha Allah mustaqbalka waan ka hadli doonaa sida loo errorka looga saaro markaas adigu waan ka hadli doonaa insha Allah adigu laakiin se imka React app-kiina horeeyay waan sameynay ku ciyaar waxa doonto ku qoro application-kaaga halkan waxa doonto ku qoro style-ka sida loo galiyo waan ka hadli doonaa adigu wax badan way ka dari doonaa marka intaas kan ku soo gabagabeynaa adigu waa ka baqanin qoraalka wax kasta adigu qor kadibna samee error badan hadduu doono ha ku siiyo laakiin si isku day inaad ka saarto okay khayr bay isku ognayn taasi ku soo gabagabeynaa isarag dambe aad baan ku salaamayaa